maanta oo taariikhdu tahay 27 Maaj 2021 anagoo ka kooban wasaaradaha cadaaladda xanaanada xoolaha diinta iyo awqaafta warfaafinta gargaarka arrimaha gudaha maaliyadda iyo macdantii biyaha waxaan halka isugu nimi inaan qabanno shirkeena jaraa'id oo ku saabsan in jawaab yar laga bixiyo arrin ku saabsanayd aflagaado oo la sameeyayna maamulka dawlad goboleedka Puntland shirkan jaraa'id waxaan uga hadli doonaa inaan ka hadalno war maalin dhaweyd ka soo yeeray wasiirka Puntland ugu magacaaban cadaaladda iyo arrimaha diinta magaciisna lagu sheegay Awil Sheekh Xamud wasiirka waxa hadaladiisa kamid ahaa hadii madaxweyne Dani uusan nabad iyo nolol oran lahayn maya waxaanu noqon lahayn sida Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ah dawlado laciif ah isla markaana wixii la doono laga yeesho marka hore waxaan ka mahad celinaynaa wasiirada ka soo qayb galay shirkan jaraa'id marka labaadna waxaan shacabka wanaagsan ee dawladnimada iyo Soomaalinimada jecel ee reer Puntland uga tacsiyadeynaynaa nasiib darrada iyo hoggaan xumida ku dhacday oo tan iyo sanadihii ugu dambeeyay aanan helin hoggaankii iyo adeeg bixintii ay rabeen una doorteen dadkii ay hoggaami ahaan u doorteen kagana mashquulay dagaal siyaasadeed iyo ka hadlid wax aan dani ka raacayn mas'uuliyiinta dawladda Puntland oo wasiirka hadlay ugu horeeyo waxa laga rabay inay ka hadlaan culeysyada dimuqraadiyadeed iyo kuwa nololeed ee maanta reer Puntland la dhacayaan inta ay ku mashquuli lahaayeen dawlad daruufo iyo siyaasado dawlad goboleedyo kala haysta marka waxaan wasiirka iyo mas'uuliyiinta Puntland oo dhan weydiinayaa dawladnimada ma waxay tahay in la diido walaalkiyo dalabyada sokeeyaha dawladnimada ma waxay tahay dal shisheeye aadis iyo lagu dido gumaystaha dawladnimada ma waxay tahay damiirka aan dhigin daryeelka maatida dawladnimada ma waxay tahay diirka cad xurumayntiyo doqonnimo u hadalkiyo dawladnimada ma waxay tahay daandaansi jiiraan iyo u doodid wax aan jirin dawladnimada ma waxay tahay dalab aan fulayn iyo dabarculayn cadaawaha waxaan intaan ku sii daraynaa daciifnimada uu nagu tilmaamay wasiirka dawlad goboleedyada saddexda ku tilmaamay waxa maanta ku sifaysan dawladda Puntland oo 22 sano jirsatay dawladooda ay dharaar cad xabsigooda intay maleeshiyo iyo shabaab qabsadeen kana sii daayeen maxaabiistii meel aan Puntland ahayn kama dhicin dhacdo noocaas ah taasna waxay muujinaysaa daciifnimada uu ku tilmaamayo dawlad goboleedyada ay kamid tahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed meel aan Puntland ahayn oo dad ayaga ku soo baxay oo nabad iyo shaqo ka soo doontay lagu gumaado malahan taana waxay daliil u tahay daciifnimada ay maanta dawlad goboleedka Puntland la ciirayso waxa inta ka sii daran oo dawladda Puntland aan maanta xasuusinayna mas'uuliyiinteeda iyo madaxdeeda in maamulkaas uusan ka shaqayn danaha iyo horumarka bulshada oo uu maalin walba la soo taagan yahay inuu ku doodo arrimo state kale madaxdoodana aysan la soo shirtaginba wax ajanda siyaasadeed oo la fahmi kara waxayna taas dhaxshay maanta inay ku sifoowaan madaxda Puntland jid iyo jahadiidnimo iyo kalsooni la'aan taasna waa daciifnimada ugu xumayd ee abad waxa mar kale wasiirka ku dhahaya oo mar labaad ku leeyahay wasiirow xishow oo waxa maanta jira iyo wixii soo jiri jiray wax intaad ka barato waayuhu aad xisaabiso waxa waxa noqono war yaro laga rabay wax weyn iyo kugu noqon Soomaalida waxay ku mamahdaa afxumo nabadna way ka kaxaysaa colna wax kaaga ma tarto xamar iyo arintan oo daruufaha la xiriirta arrimaha amniga oo isu socodka la xiriirta oo uu nagu eedeeyay wasiirka waxaanu kala simannahay dawlad goboleed ahaan
Soomaalida kale nala joogta dalka Soomaaliya galgalo oo Puntland kamid ah lama aadi karo ma koonfur galbeed ba waxa kale oo jiro gobol oo dhan oo caasimadiisu tahay Bu'aale oo shabaab haysta tan iyo 2007 oo Jubbaland ah ma koonfur galbeed ba Soomaaliya oo dhan dibkaas way ku wada siman yihiin ma aha wax koonfur galbeed iyo dawlad goboleedyada magac afka lagu dhuftay ay ku kaliya yihiin mid kale waxaan rabaa inaan u sheegno madaxda Puntland oo wasiirka iska hadlay ugu horeeyo inay koonfur galbeed leedahay dad metela oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdicasiis oo og wax loo doortay waxay kale leedahay koonfur galbeed wasiiro og ama garanaya wax loo magacaabay iyo xildhibaano ku suntan shaqadii ay shacabka ku metelayeen marka cid kale oo wasiir ama xildhibaan ka ah dawlad goboleed kale lagama yeelayo inuu qiimeyn ku sameeyo arrimaha gudaha iyo arrimaha amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed cid laga yeelayana ma lahan inay qadiyadaas ka hadasho oo aan ahayn dadka koonfur galbeed u dhashay wasiirka waxa uu state-keena ugu halqabsanayo ama ugu soo hadal qabsanayo hadii ay tahay maxay madaxda dawlad goboleedyadan u garab istaagi waayeen oo ula safan waayeen madaxweyne Dani adeer waxaan ku sheegaynaa in cid danteeda loo meerinayo ama loo sheegayo aysan jirin in dawlad la shaqeeyana aysan dambi ahayn in la shaqeyn waayana aysan ahayn dawladnimo iyo horumar siyaasiyan madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis wuxuu aaminsan yahay in dawladda federaalka aan ka mid nahay ka dawlad goboleed ahaan koonfur galbeed isla markaasna hoos tagno dawladdaas oo federaalka ah sida dastuurka dawladda federaalka oo qabiida ah uu qabo kuna leenahay dawladda federaalka xildhibaano iyo wasiiro nagu metela dawladdaas federaalka madaxweynaha wuxuu sidoo kale siyaasiyan aaminsan yahay inay jiri karaan mabaadi iyo siyaasado lagu kala aragti dubnaan karo laakiin ay laga maarmaan tahay in si waafaqsan shuruucda dalka looga wada hadlo hal waaran laga gaaro reer koonfur galbeed madaxdooda iyo shacabkooda uma basamaysna dhaqankoodana ma ahan inay dhahaan horena u socon mayno gadaalna aadi mayno halkaana joogi mayno dhaqankeena ma aha anaga iyo siyaasiyiinteena iyo madaxdeena iyo shacabkeenaba laakiin cid ku sifowday maanta oo madaxda dawlad goboleedka Puntland hadii ay guulo ka gaaraanna yeysan faa'iidadaas waxba naga siinin haday ku qasaaraan yeeyna aadin gabagabadii siyaasiyiinta dawlad goboleedka Puntland waxaan kula talinaynaa inay kaliya ka shaqeeyaan danaha iyo horumarka dadka ku nool gobolada ku abtirsada dawlad goboleedka Puntland oo ay faraha kala baxaan ka hadlida iyo u hadlida dawlad goboleedyada kale sababtoo ah dawlad goboleedyada ay u doodayaan ama ay ka hadlayaan waxay leeyihiin mas'uuliyiin u idman oo loo doortay hawlahaas ayaga ah oo ay isku dhibayaan mas'uuliyiintaas gabagabadii waxaan ku soo gaabinaynaa tixyar oo dabcan aan ugu talagalnay in aan ku wacyigelino dadka la aqli iyo aqeedada ah ee wasiirka saaxiibkay wasiirka cadaaladda dawladda Puntland waxayna u dhacaysaa sida tan dawladnimada ha shaqeyso diinteenuna ha sareyso darisnimaduna aanu dhowrno dalkeenana ha la kabo dadkeenana ha israaco damiirkuna ha shaqeeyo dadnimadana hana siiso dareenkeeno u turaya daryeelka ummadeena doorasho xilligeeda degdeg loo qabanayo intaasaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rajaynayaa inaanay hadda kadib aan dhicin in siyaasi ka soo jeeda dawlad goboleedka Puntland ama dawlad goboleed kaleba aanan ka hadlin arrimo quseeya dawladda koonfur galbeed shacabkeeda iyo danaheeda gaarka ah waayo waxa loo doortay madaxweyne waxa loo magacaabay wasiiro waxaan u dhisan golo baarlamaan oo loo xulay inay ka arrimiyaan su'aalana ka keenaan kana jawaabaan arrimaha masiiriga ah ee dawlad goboleedka koonfur galbeed loomana dulqaadan doono wixii maanta ka dambeeya waxyaabaha aan laga fikirin oo afka baarkiisa ah oo idaadaha marka meelaha soorta lagu cuno lagu sheekaysto marka kadibna la dhaho koonfur galbeed baa halka taali ma ogolaan doono waxaan naga filayaan in wixii maanta aan ka niri
wax kale oo ka duwan aan ka dhiraahno waxaan ku soo gabagabaynaynaa shirkeena jaraa'id halkan waxa ku mahadsan wasiirada nagala soo qayb galay hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu